guulwada siyaad isaga oo ka hadlaya noolaynta dhaqanka iyo hidada Soomaaliyeed iyo afkeeda la iloobay waxa uu si weyn u soo qaadqaaday qaayaha uu leeyahay ereyga la yiraahdo jaalle isagoo amuurta ka hadlaya bishii Juun 25keedii 1971kiina waxa kamid ahaa ereyadiisii الله مركان لنا يولينا وحنا وضنا صاحب كنا لله إذا أو نقولت صاحبه أما نقولت شره مبادئ ده صومالي حنا مدودو حنا حرودو عدالتنا حقوق قطو حنا اسكت شطو مبادئ ده يعني لنا هيشعل قف كان لنا وقف كنا لنا بدعوية هذين نيري دجال عن قل عن نيري صومالينا عن حرين عن نيري وشددنا ذو ما هين كلية إن عنو كحرينه الضونيمدي وسيقينay oo waaweynood oo muuqmuuqday kaliya ma ahayn waxay ahayd xataa inaan ka xoreyno hidadiisa iyo dhaqankiisa la xabaalay oo la duleeyay inaan ka xoreyno oo macnaheedu ay tahay luqooyinkiisa iyo hadaladiisii horay u xabaalmay oo lumay inaan banaanka u soo saarno taasba ereyga la yiraahdo jaalle isku yimid bedelkii صاحب لوران